أتيت اليوم يا رمضان بالأنوار تسقينا، تعيد نسائم الإيمان، تحيي نبضها فينا. أتيت وروحنا ظمآن طهر منك يحوينا، يذكرنا عزائمنا وصابر فيك يبقينا، يذكرنا عزائمنا وصابر فيك يبقينا. حللت اليوم بالبشرى لنحظى بالهنا والسعد، فبرد العفو والغفران حلو طعمه كالشهد. حللت اليوم بالبشرى لنحظى بالهنا والسعد، فبرد العفو والغفران حلو طعمه كالشهد. مضينا كلنا نهفو نجدد سيرنا والعهد، ونسعى في نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد barnaamijkeennii taxanaha ee noo soo socday ayaa waxaynu maanta qaadan doonaa qaybtii aynu ballansanaynay su'aalaha, waxaana insha allahu tacaala aynu ka horeyn doonaa qaybta cibaadaadka. fadiilatu sheekh waxa uu leeyahay su-aasha ugu horeysa waxaa jirta qof da-ah oo waalidii ah oo marka salaada qofkaasi uu tukanayo salaada waa uu qaldaa, haddii aad u sheegtana waxa uu leeyahay wuu ilaawayaa oo caqligiisu ma xasuusanayo, marka haddii aad iska dayso isagoo sidaa qaldan u tukanaya wax dembi ma iga raacayaa. su-aasha labaad wuxuu leeyahay qof qayila oo aan tukanin ma siin kartaa zakaatulfitrigii haddii uu miskiin ama faqiir yahay. su-aasha saddexaad zakaatulfitri hore lagugu lahaa oo sanadii hore kaa soo raacay waxa uu leeyahay ma raacin kartaa ta iminka. su-aasha ugu dambaysa qaybta hore wuxuu leeyahay waxaan haystaa gabadh weeyaan, waxaan haystaa carruur agoon ah, aabbahoodna wax maal ah ugamuu tegin, aniguna danyar ayaan ahay, markaa carruurta wax zakaatulfitriga miyaa lagu yeelanayaa? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، qofku marka uu cibaadooyinka gudanayo waxa uu gudanayaa intuu kari karo. ilaahay baa yidhi fattaqu llaha ma stadactum, inta kartaan ilaahay ka cabsada. marka xusuustiisu intay tahay buu ku tukanayaa, akhrintiisu inta ay tahay, waxaanu kari karayn laguma kalifayo. adiguna haddaad ehelkiisii tahay waxaad leedahay inaad xusuusiso qofka oo aad baraarujiso, aad toosiso wixii aad ku tari karto iyo wuxuu kari karo. wixii intaa ka baxsan waxba kama saarna. marka hadduu wax kale ilaawayo salaadii ama uu xafidi kari waayo erayada qaarkood iyo qur-aankii qayb ka mida, intuu karunbuu ku tukan doonaa kol haddii gabow iyo asaasaq u hayo. su-aasha kale sakada, sakaatufidriga iyo sakada guud ahaanba waxaa la siinayaa qofkii u baahnaa. dadkuna way ku sii kala habboon yihiine qofka cunno u isticmaalayaa la siinayaa. haddaad ka baqdo qofkaasi inuu jaad iyo siisto balwad waad ka daynaysa, ma siinaysid. walaa yaakul dacaamaka ilaa taqiy, akala dacaamakum alabraar. nebigu wuxuu leeyahy raashinkiinna dadku ugu ducaynaya, dadka samafalayaashii ha cunaan, macnaa dadka wanaagga sameeya. sidaa daraaddeed haddaad aragto qofkan inuu balwad siisanaya ma siinaysid, laakiin wixii waxtarula isaga iyo reerkiisa ayaa loo siin doonaa. haddaad ka baqaysa inuu ku qaylay ninka xaaskii carruurta sii, khalaas iyagu wax u tarayaa. laakiin tu kalena ma hagaagsanoo inaad tidhaahdo adigoo kaash xaq lagugu leeyahay inaad tidhaahdo lacag baan alaabaan kuu siinaya iyo raashin, dee kaash baa xaq lagugu leeyahay, taasina sax maaha. adoo ka cararaya inuu kaashkii isticmaalo
ma odhan karay sida alaabaan kuu gelinaya ninkaagana jaad baad siisanaysaa baashee taasina waa caynkaasoo ehelka sii markaa sakaatufidrigii kale hore haddii lagu leey waa dambaabtay gef baad ku dhacday xalkuna waxa weyn aad soo qallayso sida ugu dhaqsaha badan sakaatufidriga iyo agoonta waa su-aasha afraad agoonka sakada xoolaha iyo sakaatufidrigaba waa lagu leeyay waa laga bixinayaa maalkiisa hadduu maal leeyahay haddaanu maal lahayna cidda ka mas-uulkaabaa ka bixinaysa haddaanu kaasina waxba lahayna waxba laguma leh isaga xoolihiisa iyo kii ka mas-uulkaa midnaba haddaanu waxba hayn isna xoolo lahayn kii ka mas-uulahaana waxba lahayn waa wax lagu leeyahay ma jiro laakiin hadduu xoolo haysta ha laga bixiyo haddii kalena qofka biilinaya ha ka bixiyo wallahu aclam jazaaka allahu khayran qaybta labaad ee qaybta bulshada waxau leeyahy su-aasha koobaad qofka soo qoray qofku haddii uu magaciisa bedelo diintu maxay ka qabtaa xaq ma u leeyahay se inuu magaciisa qofku bedelo su-aasha labaad dhul ay dowladdu leedahay ayuu nin deganaa nin kale ayaa u yimi kuna yidhi dhulkan aniga ayaa dowladda ka soo sharciyeysanaya lacagna waan ku siinayaa kadibna nootaayay tageen dhulkii dowladdu lahayd ayay kala iibsadeen marka arrinkaasi xukunkiisu muxuu noqonayaa maadaamana dhulka iyagu lahayn su-aasha ku xigta waxau leeyahy waxaa jirta marka magta la qaato in xoolihii la soo qaatay qayb ka mid ah tolku ay qaataan halka qaybna ciddii markaa kale ee lahayd ay qaadanayso marka arrinka magtaas yaa iska loo qaadanaya su-aasha ugu dambaysa waxau leeyahay shirkad la wada leeyahay haddii koox saamileyda ka midii ay dadkii ku yidhaahdaan saamiyada aad leedihiin shirkadda cid aan ahayn kama iibin kartaan qiimaha intaa iyo intaa waxaan ahaynna ma siin kartaan xukunkeedu muxuu noqonayaa bismi illaah magaca qofku magaciisa u bedeli karaa inkastoo wuxuu u bedelayaa dee haddii ay maslaxad wanaagsani ku jirtana ay fiicanta hadduu waxun doonayana aanay hagaagsanayn marka wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam dadku magacyada way iska bedeli jireen isaga laftiisuna magac fiican wuu bedeli jireen oo xaasaskiisa qaarkood buu ka bedelay dad kaleo asxaabtaha buu ka bedelay magacaasoo markaa aan wanaagsanayn daraaddiid laakiin ka aabba iyo ka awoowo ma lihidde adugu ka aabbana ma lihid ka awoowona ma lihidoo ma bedeli karaysid waxaad leedunbaa la bedelaa dad dhintay ama meelaha joogo waalidkaaga ah magacooda ma bedeli karayso adigu laysa ismak magacaagii maaha qofku wuxuu leeyahay buu taqyiir iyo tabdiil ku sameeyaa dhulka dowladda ama dee hantida caamka ee ummaddu ay leedahay waa la xaraashi karaa haddii laga maarmo oo ummaddiina dib loo gelinayo iibsigiisana ummaddu u simantay marka eex iyo waa inaanay ka madhnayn waa inuu ka madhan yahay wax eex la yidhaahdo iyo dheefsi cid gaaray dheefsanayso taasunbaa muhiima haddii ummaddu ay wixii ka maaranto wejigaa intoo laga bedelaa weji kale loo bedeli karaa haddii aanay taasi jirin cid kale oo sii kala iibsataana ma bannaana guryaha dowladda iyo gaadiidka iyo xaqalcaamka shakhsiyaad iyo kusii tasarufayoo sii kala iibsanayaa ma jiro waxaad iibsataa xalaal kuu noqda qof kale wuxuu kaa iibinayo laakiin dee kole haddaanu qofkiiba lahayna ummaddu ay leedahay ummadda cidda ka wakiilkunbaa maslaxadda ummadda u iibin karaysa marka taana waa mushkilad jirta qofku xalaashii iyo xaaraantiisa inuu shaygaa iska hubsado weeye oo waxaan ma qabaa iyo ma qaatuun weeye arrinkii inuu saa u dhaco maaha waxa weeye maxaa xalaala maxaa xaaraana qofkii inuu eego weeye cidda wax kaa iibinaysa waa inuu yahay hantiilihiina waa kuma waa dadweynaha iyo ummadda ummaddiina cidda matelaysaa u iibin karaysa ciddaa matelaysana shardiga ku xidhan waxa weeye maslaxadda ummadda inuu geliyo oo isaga laftiisu muxaabaad iyo ka faa'iidaysa aanay noqon magta qaarkeedoo la cuno waxaad ku cuni kartaa dadkii lahaayoo ku siiyey 100 halaad haddii la soo qaado 100kii halaad waa dhaxal qofkan dhintay dhaxlayaashiisii baa leh hadday yihiin dad waaweyn oo miyir qaba oo aan ciyaalna ahayn wixii ay odayaasha siiyaan magacii la doonaha loo bixiyee way qaadan karaan
laakiin dadka waalan iyo agoonta waxba lagama goosan karayo haddii laga goostana waa xaaraan cidda qaadatun buu ilaahay kala xisaabtamaya aakhiro haddii dadka waaweyn laftigooda iyagoon oggolayn laga gooyana waa boob iyo dhac marka arrintaasi mushkiladdaas waxay haysataa cuqaasha salaadiinta madax dhaqameedka odayaasha wixii la odhan jiray qubanaha magtiyo konton iyo konton koltonna tolku cuno kontonna lagu sifsifo dadkii masaakiinta ahaa oo lagu tuuro kontonkaa la cunay ninkii wax ka cunayba carruurtiisay ka go-anta waa waxa wada jaanjaamay dee dadkan dheg la qabta aan lahaynan laba afgaranayninba waa qubaniba ku wada maqan cuquba halkii lagu galay caw ku hurudaabuu ninkii yidhi carruurtay ka laysaa ninkii caano baas dhamay oo caanii baasaaun marka iska ilaali waana qalad inuu qofku caqligiisun ku socdaanu sharci eegin waa dembiili qofku hadduu caqliga yidhaa waa caqlaani baa la yidhaa qofka yidhaahda maaragtay caqliguma ku soconaya oo magta marka qofkan laga bixinayaba waanu ka bixinaaye markuu qaadanayana waa inaanu la qaadannaa arrintaasi waa caqli weeye caqligaa maaha diintu magtu markay qofka ku timaaday gef tahay isaga laguma lehe adigaa lagu leey khata'a kolkay tahay kolka isagii cid laga dilana isagaa dhaxlayaashaasaa iska leh walow dumarba ha ahaadeen marka arrintaasi aad bay u dembi badantay iska ilaaliya marka su-aasha afraad aynuu soo gudubno muxuu ahaa magaca iibintiisina waaye baycul asum marka saamiley la yahay shirkaddu ay saamiye wada leedahay dee qof waliba wax buu leeyahy qofku wuxuu lahaa in laga joojiyana ma aha in lagu taxakumana ma aha isagaa la dee saamigiisa isagaa loo iibin karaya qofku haddii xeeroosaad la samaysto la ydhaa priority-ga ama awlawiyadda ama marka u horaysa ha la siiyo dadka ku jira shirkadda waa fiicantoo taa lagu heshiiyo kolka hore la kala qorto oo la idhaahdo haddaad wax iibinaysood ka maaranto sixira suuq baa lagaa siisan doonaaye laakiin saamilayda qof ka mida ka iibi haddii taa heshiiska hore lagu galou qofku saxeexo oo idhaa wixii aan iibin doono saamilaydaan ka iibinaya dee heshiiskaa horea xukumaya oo muslimiintu shuruuddooday ku soconayaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka hore waxaad ku heshiiseen heshiiskii aad gelaysay shirkadda wixii saamigayga haddaan u baahda inaan iibiyo waxaan ka bilaabayaa dadka waxilo leh adaa saxeexo waa sax laakiin qofku isaga wixiisa xoro ah laguma taxakumi karo intaa ma siinaysid iyo intaasaad siinaysaa iyo ciddaasaad ka iibinaysaa isagoo oggolaada mooye laguma qasbi karayo hal mar buu sharcigu qasbay markaasina waxa weeyaan marka caqaaraadka arrinta maguurtada shayga loo yaqaano haddii guri noocan oo kale aynu wada leenahay sidaa masjidkaoo kale bakhaar isku furan oo adigu aad doonto intaadii inaad iibiso waa inaad aniga iga bilowdaa haddaad qof kale ka iibisana anaa lacagta ugu shubayo iskula wareegaya waxaa la yidhahdaa baabu shufca la yidhahdaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat الsheikh su-aalaha maanta oo waxay inoogu dambeeyeen qaybtii su-aalaha oo aynu soo xidhnay berrito waxaynu usoo diyaargaroobi doonnaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhaahdo cashar ku saabsan zakaatulfitriga iyo axkaamta maalinta ciiddu ay leedahay biidni illaahi subxaanahu watacaala waxaa jira waraaqo inoo imanayey ilaa intii casharkeennan uu bilaabmay fadiilat الsheikh dad fara badan oo duco soo dalbanayey qaar cidi ka xanuunsanaysay qaar dhibaatooyin kale ay haysteen waxaa kaloo iyaguna dhanka kale runtii dhalinyar fara badan oo ilaahay khayra siiya barnaamijkan nagala shaqeeyey qaar su-aalaha soo ururin jiray qaar soo qori jiray qaar emailka inooga soo saari jiray iyagana in ducada insha allahu tacaala loogu daro iyo ducada caamka muslimiinta ah intaasaynu maanta casharkeenna kusoo xidhaynaa tafadal sheekhana dembigeenna allaha dhaaf kii waalidkeenna allaha dhaaf intii cudur qabta caafimaad allah ugu bedelo cudur inta qabta caafimaad allah ugu bedelo cibaadooyinka aynu gudanayna noocyadeeda kala duwan allah inaga aqbalo soomka sadaqada salaada zakada intoo dhan ba allah inaga aqbalo waxaynu ku rajo weynay inuu ilaahayna siiyo raali noqoshihiisa iyo xoraynta naarta inaga xoreeyo jannadu ina siiyana ilaahay nagu guuleeyo waalidkeena allah u naxariisto innagana allah inaga daba naxariisto qofkii tacab khayr la sameeyey tacabkiisa khayr kale allah ka abaaliyo inta kalena khayrka allah ku abaabulo
ummadda islaamku guud ahaanba dhibkay qabaan allaha ka dulqaado cidda dulman allaha u heeliyo cidda dulmiga wadana ilaahay ha ka soo hanuuniyo hadday soo hanuuni waayana ilaahay ummadda ha ka qabto cadowgana allaha jabiyo muslimkana cizi allaha siiyo qulubtoodana allaha isu jeediyo waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo dalka dadka dunyada ubadka ehelka adduunka intaba allah inoo barakeeyo diintana allah inoo barakeeyo kuwii diinta fahmee ku dhaqmana allah inaga dhigo sala allahu calaa nabiyina maxamed أتيت اليوم يا رمضان بالأنوار تسقينا تعيد نسائم الإيمان تحيي نبضها فينا أتيت وروحنا ظمآن طهر منك يحوينا يذكرنا عزم